kusoo dhawaada casharkeeni taxanaha ahaa waxaynu ku jirnay chapterkii matrix ayaynu ku jirnay gaar ahaan qaybtii determinant-ga waxay noo marisay calaamadii afraad ayaynu maanta sharaxaynaa calaamadii koowaad iyo calaamadii labaad iyo calaamadii saddexaad waa kasoo gudubnay ay leedahay determinant-ga marka waxay ku leedahay calaamada afraad waxay ku leedahay haddaynu qeexno matrixka elementska ay leedahay hadda that a intan ay la mid tahay elementskeeda haddii lagu dhufto number constant wax laga wadaa haddii maqasho constant number wax weeye laba row ama laba column ama haddaynu fiirino dhan column-kan iyo column-kan iyo column-kan sida halkan ka muuqata that a1 waxay la mid tahay intan column-kan iyo column-kan iyo column 3 saddexdan column waxa ka dhaxeeya constant number waa k marka k-daas oo lagu dhuftay waxay la mid tahay new determinant-ga soo bixi doona oo lagu dhuftay k waxay la mid tahay original determinant-ga hadda halkan waxaan uga jeednaa determinant 1 original determinant waxa weeye waa sidan original determinant waxaan ku dhufnay k marka k-dan waxay ka turjumayso ama waxay ku tusinayso saameyn mu ku yeelan karaa a2 iyo b2 iyo c2 iyo a3 iyo b3 iyo c3 mu ku yeelan karaa يعني ما تهاي واحد جود أو كده هي كونستي يمكن أو ده هي ما تهاي ونعديننا مركا سفعنا أيون وشرحنا حدينا وقحنا قصتي عن صوكمنا حدينا صوكمنا أن هذين هذا let A1 أن وكشقينا مركا determinant هذين محاورة لنا واحد لم يتهاي حدينا صوق على la mid tahay markaan raadinayno determinant-ga maxaan sameyn jirnay waxaan soo qaadan jirnay ka1 ayaan soo qaadan jirnay soo ma ka1 si loo shaqeeyo waan ka soo shaqeynay oo si fiican ayaan u sharaxnay casharada hore ayaan si u sharaxnay k ayaan soo qaadanayaa marka waxaan soo qoranayaa a1 ayaan qoranayaa a1 ayaan qoranayaa marka a1 yee la wadaagtaa row ahaan iyo column ahaan line-ka ayay ka tirsan tahay row ahaan maxay ka tirsan tahay line-kan maxaan qaadanayaa marka b1 c2 b3 iyo c3 inta maxaynu u naqaanay minor ayaynu u naqaanay marka waxaan qaadanayaa intaas ayaan qaadanayaa waxaan sameynayaa marka b2 waxaan qoranayaa b2 iyo c2 C2 iyo P3 C3 ayaan qoranayaa waxaan oranayaa marka maxaan ku xiranayaa bracket ayaan ku xirayaa marka halkan maxaan oranayaa minus miya mise plus waxa weeye minus weeye casharka hore ayaan ugu soo sharaxay si fiican minorkii markaan addition-ka ka shaqeynay aan soo marnay matrix-ka minus weeye minuska haddaan ku noqdo siduu ku yimid minuska wuxuu ku yimaaday k b1 xagee ooshaa waxay ooshaa row 1 soo ma waxay ooshaa row 1 iyo column 2 ayay ooshaa row 1 iyo column 2 haddii oosho waxaynu samayn jirnay saynu naqaanay -1 ayaan qoranaynaa waxaanu isku daraynaa column 1 iyo row 1 ayaan isku darayaa waxay noqonaysaa 3 marka maxay noqonaysaa 3 jeer haddii la isku dhufto -1 waxa weeyaan -1ka ay soo baxay -1ka saan ay ku yimid marka waxaan sameynayaa waxaan soo qaadanayaa kp1 ayaan soo qaadanayaa p-da ayaan qoranayaa waayo waxaan rabaa inaan soo gaabiyo waan dheereynayaa marka row ahaan column ahaan muxuu la wadaagtaa line-ka ay ka tirsan tahay column ahaan maxay ka tirsan tahay line-ka ay ka tirsan tahay row ahaanna maxay ka tirsan tahay line-ka ay ka tirsan tahay marka maxaan qaadanayaa a2 iyo c2 iyo a3 iyo c3 ayaan qaadanayaa saa ayaan sameynayaa marka waxaan sameynayaa a2 waan qoranayaa a2 iyo c2 a3 iyo c3 ayaan qoranayaa waxaan ku darayaa addition ayaan line-ka ku xiga muxuu noqonayaa plus ba sababta waxay dhiban kc1 ayay dhiban
marka determinant hadini maxay dhiman kc1 maxaa sameynaya plus ay noqonaysaa because halkan waxa weeye waa 3 soo ma waa column 3 markaan column 3 iyo row 1 isku daro maxay noqonaysaa halkan 4 ay noqonaysaa maxaa soo baxaya positive ayaa soo baxaya markii -1 4 jeer isku dhufto positive ayaa soo baxaya marka waxaan qoranayaa positive ayaan qoranayaa number waxaan soo qaadanayaa kc1 ayaan qoranayaa maxaan oranayaa kc1 ayaan qortay kc1 iyay ka tirsan tahay row ahaan iyay la wadaagtaa row column ahaan leenka ayay la wadaagtaa row ahaan leenka ayay la wadaagtaa waa sida tan hadaynu muujino leenka intaan ayaan qaadanayaa waxaan oranayaa A2 B2 A3 B3 waxaan ku xiriyaa bracket ayaan ku xiriyaa marka halkan maxaa weeye waa C1 halkan C1 weeye kc1 marka maxaa sameynayaa maxay wadaagaan aljabradan hadda fiirisid xisaabtan hadda fiirisid maxay wadaagaan waxa ka wada dhaxeeya intaan hadda waxa ka dhaxeeya intaan waxa ka wada dhaxeeya k ayaa ka wada dhaxaysa marka maxaa sameynaya kayda ayaa banaanka uga saaraya kaydaas ayaa banaanka uga saaraya kayda banaanka marka uga saaro waxaan furanayaa bracket guud ayaan furanayaa kayda marka banaanka ku saaro waxaan furanayaa bracket guud waxaan oranayaa kaydaas banaanka u saaray bracket guud ayaan furanayaa ila kayda way ka wada dhaxaysaa intaan oo dhan waxaan oranayaa A1 ayaan soo qaadanayaa waxaan haddana soo qaadanayaa bracketka yaraa oo intaan ahaa waxaan oranayaa B2 C2 B3 C3 halkan waa C2 bracket ayaan xiriyaa waxaan soo qaadanayaa minus B1 waxaan oranayaa bracketka ayaa furayaa A2 C2 A3 C3 plus ayaan oranayaa waxaan oranayaa C1 bracketka ayaan furanayaa waxaan oranayaa A2 B2 A3 B3 bracketka ayaan ku xiriyaa waxaan kusoo xiriyaa ila kaydan waa commonka ay wadaagaan waxa weeyaan waxa guud ay wadaagaan waa k soma ama waxa la dhahaa xisaabta halkan oo kale markaa marisid aljabrada waxa la oran jiray dugsiga sare common factor ayaa la oran jiray common factor laakiin hadda kaydan maxaa weeye waa common factor yani waa waxa guud ay wadaagaan waa kayda marka waxaan ku xiriyaa bracket guud ayaan ku xiriyaa bracket guud marka ku xiro intaan maxay la mid tahay intaan qiimaha ila mid tahay maxaa weeye hadaynu soo koobno intaan maxay ila mid tahay determinantiga intaan determinantiga waxay la mid tahay originalka ay la mid tahay originalka maxay ahayd intaan ay la mid tahay intaan ay la mid tahay originalka maxay la mid tahay intaan marka halkan maxaa u qaadan karaa maxaa oran karaa hadda halkan equal bay ahayd equal time ay hilmaamay marka waxaan oranayaa det A1 waxay la mid tahay det A1 ka ayaan soo qaatay waxay la mid tahay k oo lagu dhuftay det ila originalka ay la mid tahay marka maxaa usii qori karaa k ayaa soo qaadanayaa k ayaan soo qaadanayaa ayaan soo qaatay waxaan sameynayaa laynka ayaa furayaa waxaan oranayaa A1 B1 C1
A2 originalka ayaan soo qaatay B2 C2 waxaan oranayaa A3 B3 C3 ayay la mid tahay marka hadda maxaynu ogaanay constantigan inay ka wada dhaxayso ayaynu caddaynay A iyo B iyo C iyo A2 iyo B2 iyo C2 iyo A3 inay ka wada dhaxayso yani elementiska inay ka wada dhaxayso constantigan halkan haddaynu fiirino kaydan maxay ku dhacsanay rooga bas ayay ku dhacsanay laakiin hadda maxaynu caddaynay inay ka wada dhaxayso marka haddii aad leen ku dhufatid determinantiga waxaanu hadda caddaynay inay ka wada dhaxayso constantigan inuu wada saameynayo waynu caddaynay marka originalkii oo lagu dhuftay k waxay la mid tahay A1 waynu caddaynay waxaad ogaataa haddii muxuu ahaaye inuu ka wada dhaxeeyo waa muhiimadda conceptiga u socona waxay elementskan inuu ka wada dhaxeeyo constantiga halkan ayaynu ku caddaynay example ayaynu ka bixin doonaa concept ayay ahayd